السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلانتي بولا لايك قالقا كحولن كنالكا لك شو ليش نمر بدك سو نقطه مقال عسوب سو دو صاحب يل سو فريستا waxaan ka codsanayaa channelka subscribe tii like tii share tii comment-ga inaad inta basaartiin. waxaan doonaynaa ka hadlo reer Boorame oo muujiyay dareenkooda in ka soo horjeedaan in la iibiyo amba la kareeyo badda ee lagu haya iyagoo diiday amba ka biyo diiday in gabihaanba xabashi ay timaado dhul ay Soomaali leedahay. haddaba waxa kala hadlay Nimcaan Hilaac oo isaguna ku taageeraya shacabka Soomaaliyeed sida ugu dhudiyeen in xabashi ay timaado dhul Soomaali leedahay. waxa kale rabnaa inaan ka hadalno mulkiilaha MMTV oo lagu xiray magaalada Hargeysa xalay toole aynu ka horreynaa Nimcaan Hilaac. والله الصوماليين هلك كل سنة سنين بعد السلام يا دنيا دنيا مكسر جبتهم صح بعد السلام وحان ربا هل يلا وين كيرا أريمهني بريهني دبك على الصن دلكينه جارهان حيوها قبل كأوضل شوية الصوماليين كم هتسيهين سيدا وقدرين عليين دمع قرآن يتوبي وقربته حيوهنا marka xiga madaxweynaha qaranka oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha ku mahadsan yihiin go'aanka ay ka qaateen isla macaasi Itoobiya markii koobaad iyo markii labaad markii saddexaad ee xeebaha Soomaaliya damacday ma aha weligeed ba damac soo jireen baa lahayd balse uu suurtagal waayay xeebahani baabal mandab dad Ilaahay ku beeray dadkaasi dawladooda ayaa difaaciisana ku guntanaya ilma hadeenin wax shaxad lagu bixiyo ma lagu haya iyo wax gasho lagu qaadan karo waarkay ay aflagaada iyo waxyaabo aan munaasib ahayn waqtigan in isku maaweeliyeen war markii baa jooga tagtaniyo ninka soo dhulkiisa anigu kan macnahan عرضنا عنك تلتيانو أيد سنة كعدم منبريو وأنا نبدأ يرهنا مدينة دافق قبط اليوم سرها وضلح من الشارع والمدح كره لو قادو Nimcaan Hilaac wakaas uu hadlay waxaanu sheegay in aanu marnaba ogolaanin amba aanu yeelaynin in deegaanka xabashi ay dhulkeena timaado. haddaba reer Boorame sidii u dabaaldegeen waa sida waxay u yeedhayaan Xasan Sheekh badan adeer rag baa u soo dhintay min Axmed Guray lama iyo maanta aan joogno Itoobiya way ku taamisay badayada hesho dadka iga ma yaraatee ma ogolaan doono wax Itoobiyana oo badaha iyo bariga soo joogsan sanadkii meeshii dibadda ay tahay ay ku ogaadaan أنا غمية قاش بحر إثيوبيا كوستيني لا تدخل دانسا محايا هل كان أنا هوانكي قبل كأوضل وحلينا حيدا المنجرة دمانتون إن لقى دادعين فكر كأح إنه موسى يكون طولا كتب إثيوبيا ولا لقد دي بصحيح بدل هذا الرقم asxaabay wad arkaysiin reer Boorame way ismuujiyeen maanta yacni qofku bilaadankaana in wax diiday waxna doona xaq buu u leeyahay hadaana yacni qof marna wax doonay marna wax diiday aanad ahayn qof jiraba ma tihid dhulka waxaan ku leeyahay waa dhul loo dhintay loo soo tabcay waqti badan iyo tacab badan uu soo galay marka xaq iyo xuquuq bay dadku u leeyihiin inay diidaan waayo xabashi cidna ma ogola xabashi cidna ma jecla xabashi wax la soo dhaweysta ma aha haddaba aynu ka hadalno yacni sida lagu xiray wariye ilig horta hore waxaanu ogeyn in la xiray oo marar badan yacni la xiray ninkaas
aadna horta uga xumahay in xalay toole ay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay qabtaan qofka bilaadanka qalad u gali karaa wadan shisheeyna ma joogay wadankiisa waa lagu xidho horta wariye ilig kulley sida Maxamuud Xaashi sheegayna wuxuu sheegay Maxamuud Xaashi inuu ninkan yahay nin aan looga baqi karin inuu cadow uu garabka soo saari karo amba aan looga shaki karin isaga shakhsi ahaantiisa loo haysto arrimo isaga khaas u ah wax jiraaba wixii jiraaba way iska iman doonaan kulley wadanka sharci baa ka jira de maxkamad baa la saari doonaa haddii aan maxkamad la saarinna de waa la iska soo deyn doonaa insha Allah ma barajeynayna maxkamad la saaro ninkaas waa nin wanaagsan dalka wax badan u soo qabtay yacni suuqii waa heen uga qayb qaatay weyn ogeyn sidoo yacni ninkaas uu wax badan ugu soo qabtay shacabka weyn ogeyn habeenkii xaaladiisu soo noqotay uu ka warhaynay inuu ku dhex jiray meesha ololeyso soo qiiqaysa si walba ha haato wariye ilig miyuu mudan yahay in maalin walba la xiro وحقدر لو خيرو mid kale qofka bilaadanka de qalad uu gali karaa haduu qaldamo de wiska soo cadaanaysa uu sheekadan waxay tahay guda iyo dambaba wiska soo xaqiiqadu mararka qaar wiska soo baxda marka anagu waxa leen insha Allah bismillaah kam ilaahay ku dhib yareeyo waxa tahay nin ku dayasho mudan nin shacabku jecel yihiin baa tahay ma sha Allah tabarakallah marka si walba ha haato wixii xaqiiqa amba wixii war dambe oo ka soo baxa kulay social media la wada isticmaalaya wala wada arki doona balse laakiin mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan ka xunahay xariga wariye ilig waayo uma qalmo in la xiro qofka bilaadanka walow uu qaldami karo oo de sharciga uu ku qaldami karo balse laakiin waxa u maleynaya arinta lagu haysta in arin siyaasadeed tahay si walba ha haato khayr baan u rajeynaa inuu lahay sida ugu wanaagsan amba ugu fudud ugu soo dhameesha la bismillaah karim aad iyo aad bad ma siti muuqaalkan kale inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo